Donald Trump ayaa la qorsheynayaa 13 ilaa 16 bishan May inuu booqasho ku tago Khaliijka. Haddaba su'aalo badan ayaa booqashadiisa ku gadaaman. Qolooyinkii aqalka cad waxay leeyihiin Trump wuxuu doonayaa in la xalliyo arrinta Gaza inta uu booqashada ku jiro. Ma wuxuu doonayaa xabad joojin iskiisa inuu sameeyo inta uu joogo inaan wax dagaalan dhicin. Ma wuxuu doonayaa inuu gargaar geliyo tafaasiil badan lama hayo. Mase dhacaysaa in xasilooni la helo iyadoo maaragtay heshiis laga gaarin qadiyadaha waaweyn ee ay isku hayaan Xamaas iyo Israa'iil. Dhammaan arrimaha waxay u baahan yihiin jawaabo. Haddaba warbixinta laga qoray goordhawe Jazeera qortay hadaan idin la wadaago waxa leeyahay Trump wuxuu doonayaa in la xalliyo arrinta Gaza ka hor booqashada uu ku tagi doono gobolka. Joornaalka la yiraahdo Washington Post ayaa wuxuu daabacay warbixin uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu doonayaa in markaa la xalliyo qadiyada weyn ee ka jirta Gaza ka hor inta aanu bilaaban booqashada 13 May uu ku tagi doono gobolka. Haddaba aqalka cad war ay soo saareen waxay sheegeen in Trump uu booqasho ku tagi doono Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka taariikhdu marka ay tahay 13 ilaa 16 bisha May ayuu halkaa tagi doonaa. Marka ma arkaysaa marka waxa kan dadka wax falaqaynaya waxay leeyihiin ariga muxuu ku dhamaanaa macnaha Trump soo baxaya xabadda joojiya waa la joojinaa uu dagaaya shaqadiisu dhamaysanaya uu noqonaya isku bilaaba masaasa wax kale ma aragnay leey saansaan muuqata male wax maaragtay raada oo maaragtay wax ku joogsan karaan male. Israa'iil waxay leedahay waxay waasi laba kaclaynay sheekadu way socotaan nimankii waa kala taagan yihiin. Marka waxa uu doonayo in lagu xalliyo dadku ma fahamsana laakiin dadka qaar waxay leeyihiin oo wax falanqaynaya waa uun iska sheeko waaye. Odaga wuxuu doonayaa in la xalliyo dagaal hadduu doonayo hadda ma xalliyo macnaha markuu soo baxay muu xallinaya sheekadaas marka dood fara badan ka taagan laakiin dadku waxay leeyihiin waxaas waa iska hadal wax dhaba ma u muuqdaan leeyihiin oo maba jiraaba wax meesha ka socda. qodobka labaad ee barnaamijka ayaynu u gudbaynaa sidaan horeydii kugu soo gudbiyay yahuud fara badan iyo dad fara badan oo Israa'iil u socday ama ka soo baxayay ayaa ku xadhiban eraboorro waaweyn oo caalamka iyo kuwa Israa'iil intaba waxay laayihiin diyaarad qaada waato xuutigu yiri hawada waa ii xirad diyaaradii isku soo gashay sida taan ugu adeeganaya amarkii xuutiga diyaarada waaweyn qaat Israa'iil way qaylinaysaa waxa leedahay war xuuti waxba idin kama qaaday maadu xilaa ma soo socday leedwaka waxa aragnay meesha ka dhigay wixii aad haysateen difaaca cirka way aan lahaydeen ever way ilaa xal kale la helo ma soo socday waxyaabaha Israa'iil wadnaha jaray waxa kamid ah diyaaradihii waaweynaa ayaa diidayba inay tagaan ku yar yaraa iyagoo waa raaceen. waxaa kamid ah diyaaradda weyn ee Mareykanka la yiraahdo Delta waxaa kamid ah British Airways waxaa kamid ah Lufthansa diyaarada waaweyn diyaaradda Talyaaniga Air France intaasoo diyaaradood kuwii waaweynaa ahaa oo reer galbeedku ahaayeen waa diideen kuwii yar yaraa iyaguna way raaceen. markaas dadkii waxay dhooban yihiin eraboorradii wax qaada male. Israa'iil waxay leedahay hadoo jabinin nimanka hawada xirna dhaheen hadda hanoo jabinin waxa leeyahay danteena ka fakareenaa dhaheen xuuti ma soo gaari karaa eraboorka mise ma soo gaari karo sheekada waa dhamaatay dhaheen ninka waa soo gaari karaan xal kale ma haysataan may anagu de waa ka fakareenaa meesha may maaneen leeyihiin sheekadaas barka iyaduna qodobada xiisaha leh ee soo kordhay ka mid ah. haddaba qodobka aadka u xiisaha badan maanta aan idin hayo wuxuu yahay nimankii khubaro Israa'iiliyiin iyo kuwa reer galbeed ayaa waxay aruursadeen jabka gantaalkii ay soo rideen xuutiga Mareykan, Ingiriis, Israa'iil, Germany kulli waa la isugu tagay. waxaa la yidhi gantaalkan 2,000 kiiloomitir soo socday oo hanaankeenii gantaalaha ay difaaci waayeen oo u soo gooyay oo isagoo isqaba garoonka agtiisa ku dhacay waxa kanu wax caadi ma ahan aan baarnay dheh baaritaan sameeyay
haddaba aridi tuso sheeko la yaab leh oo arrinka aljaziira ay goordhow ka qortay waxay leedahay israa'iiliyiinta waxay qiimeyn ku samaynayaan xuutiyiinta gantaalka ay ku bartilmaameedsadeen waxay sheegeen inuu yahay nooc cusub kaasoo lala beegsaday eeraboorka bangorion joornaalka la yidhaahdo israa'iil hayuum ayaa waxay sheegtay in arrinkan israa'iiliyiinta ay baaritaanka ku samaynayeen ee gantaalka ahaa kaasoo jamaacada ansaarullah xuutiyiintii axadda ay kusoo weerartay eeraboorka bangorion inuu yahay nooc cusub oo ku cusub reer galbeedka marka waxay leeyihiin waxaana muuqata in jamaacadu ay weli horumarinayso gantaalaha iyo darooniska ay haystaan oo kuwo casriya ay yihiin inkastoo maraykanka duqayn uu kala daalay goobaha ay maamulaan xuutiyiinta waxaa dhanka kale kanaalka 13 ee Israa'iil uu leeyahay in Israa'iil ay markan u diyaar garowday weeraro ay ka filanayso dhinaca sawaariiqda xuutiga ah kadib markii iyadu ay isku weerartay xuutiga oo ay weerar ku qaaday dekada Xudayda shalay ma u jeedaan waxay leeyihiin sawaariiqdan waa kuwo cusub wayde oo casri ah in wax laga bartay u baahantahay si u farsameeyeen haddaba iyagu farsameeyeen haddii meel kale looga soo dusiyay laba yaqaan laba ka u keenay sawaariiqda nooca ayaa haysta ruushka maageeyay Chinese maageeyay Iran maageysay jeega xirka maageeyay cid geysay ma iyaga sameeyay lama yaqaano marka laakiin waxa isku raaceen khibradu waxa kan wax ku cusub inay yihiin gantaal saas 2,000 oo kiiloomitir soo socday oo la og yahay inuu soo socdo gantaalahanuna ay casri yihiin oo markuu soo dhow yahay iyagoo caaboon ay ka hortagi karaan kan waa soo daalay hadduu u dhowaan lahaa gantaalkan oo meel dhow laga soo ridi lahaa ka waranay hadda marka waxay yiraahdeen telefishinkooda wuxuu leeyahay Israa'iiliyiinta wuxuu leeyahay diyaar waa Israa'iil waa cabsanaysaa heegari ku jirtaa xuuti inuusan daynaynin ogtaa maadaama ay dekada Xudayda weerar waxyaabaha la yaab kale ee warbaahinta Israa'iil ka hadlayeen oo ay soo bandhigeen adii tusina sawir ay leeyihiin nimankan gantaalahooda waxay ku jiraan buuro waaweyn hoostood buurta hadii wax kasta lagu dhufto wax karaawo male waa buurihii Toroboro oo kale Afghanistan markaas sawirro waxay ay soo bandhigeen ay leeyihiin gantaalku buurtooda ka soo dhex baxa marka la duqeynaaba yaa arkaaba buurtu ka soo dhex baxaaba gantaalkii si u sameeyeen laga yaabay waatii Mareykanku yiri ilaa infantry lagu galo nimankan buuraha iyo meelaha ay ku jiraan la agtago ma laga adkaan karo marka sheekadaas ayaduna hadaba qaybta waxaan ku faahfaahineynaa Macron wuxuu qaabili doonaa asharac 4 brid waxa sheegay qasriga Élysée la yiraahdo ee looga taliyo Faransiiska waa booqashadii ugu horeysay la leeyahay uu ku tago halkaas ama Yurub ku tago asharac tan iyo markii madaxweynaha ku meel gaarka Suuriya loo doortay hadaba marka waxyaabo waaweyn laga wada hadli doonaa leeyahay ku saabsan xiriirka Suuriya Faransiisku inuu caawiyo Suuriya xayiraadaha saaran in laga qaado Yurub iyo Mareykan iyo kala shaqeeyo al-sharac isaguna wuxuu doonayaa in siyaadada iyo qarannimada Suuriya la ilaaliyo oo maartay Israa'iil xadgudubyada ay ku hayso ay Yurubiyanku marka wararka soo saaray kastoo Yurubanka hore ay warar soo saareen arrimahaas ayaa la sheegay in laga wada hadli doono laakiin sheekada xiisaha leh ku jirta waxay tahay warbaahinta Faransiisku waxay leeyihiin ninkan al-sharac la leeyahay waa nin islaamista sidiisaba waxay u yaqaanaan dadka diinta ku adag oo macnaha diintiisa qofka haysta marka ninkan waa jihaadiste waa islaamiste haye hadda ka hor dad u tagay wasiiradda arrimaha dibadda ee Jarmalka oo salaan u taagtay ayuu diiday isagoo jooga Dimashq maadaama hadda uu la kulmayo madaxweyne weyn oo Yurub dhan kaaba ka ah oo Macron la yiraahdo xaaskiisana ay mar walba la joogto Élysée marka la soo dhaweynayo ninkan ma salaami doonaa marwada koobaad mise ma salaami marka laba garoobaan wax ka fiirinaa ninka inay yeelaan waxay ugu yeelayaan ninka diin uu leeyahay diintiisa haday laagtun salaamin tir maxaa dhiba qof walba diintiisa in lagu ixtiraamo
yurubaa qabta ninkan anigu inaan wax salaamo diinteeda ima ogola ee dad kalaa jiray dhaheen madax kale oo islaama oo muslimiina oo salaata qaata adiga waa u diidaysaa maama adiga wax kale kugu qarsoonay lii dagaalku marka halkaasuu isaguna ka socda waa arki doonaa Brito waxa ka dhaca qasriga Elysee barnaamijkeygii inta ayaan kusoo gabagabeynayaa